وحلال إيه وحي باللغة قريها اللي تبصريه gidaarada wax lagu qorayo dabdarooyinka aan laaqiga ahayn adduunyo waxba ka hali doona dad baa hali doona waa la isu dambeeyaan nololimo dhammaan qofkii wax bileeqaysaya bini'aadamka ka xishoo waayay ilaahay ka xishoo waayay waxaan lahayn qofka intuu qaato lagu dilo waa finnaar weeye waxaan leeyahay anagu islaax baan wadnaa askarta laftooda waxaan leenahay dadka asha xumada wada ee isku sawiraya guryaha waxaan leeyahay waxa dib ha ugu noqonina taliyaasha waxa la talaabo sharciga ka qaada in wax la bileeqaysto boqolkiiba boqol waanu ka soo horjeednaa waana qabanaynaa waxaanu ka danqannay oo diidanahay oo ka xunnahay waxa magaalada ka dhex socda ee ay sameynayaan dadkii magaalada ku hadhay ee u dhashay iyo ciidamadii qaranka ee ku soo kordhay iyo kuwii madaniga ahaa ee joogay intaba waxa ay ka sameynayaan anagoo ka xun waxaanu leenahay la joojiyo kuwa ka maqan ee imika meel kale ku maqan waxaan leenahay nabadgelyaan idin haynaa haddaan laydinka waayo idinka anigu nabadgelyaan idin haynaa idinku yeerina magaalada Ceergaabo waa nabadgelyo inta joogta iyo inta maqanba waxaan u sheegaynaa Ceergaabo inay nabad tahay guryaha lambarada lagu qorayona hal laga daayo nin laba iska leh aroorta la isu imanaya nimankii sharwadayaasha ahaa ee magaalada dagaalka ka riday haddii laga saaray magaaladu inay dogto baanu doonayn oo loo baahan yahay dadka wax bileeqaysanaya war ka waantooba bileeqaysanaysaan xoolo aan leedihiin ma idin ma fasaxna dadkii ilaha weydin la joogan ma foga dadkan bileeqaysanaya hantida aan lahayn xoolo idin ku xaaran waliga malqacad qaata oo hantidii uu lahaa malqacad u geeyo xaaraana inta kale oo ka xaaraantinimoobaysa ciidanka qaranku kaana waa ciidan kana waa ciidan war isagu talaabaha ka qaado dadka wixiisa dhacaya waxa waayeelkaygan halkan isugu yimi isugu soo saaray inaanu soo jeedino baaq aanu kaga hadlayno magaaladii Ceergaabo waayeelkeedii baanu nahay haddii allaba ku roon yahay waxaanu ka danqannay oo diidanahay oo ka xunnahay waxa magaalada ka dhex socda ee ay sameynayaan dadkii magaalada ku hadhay ee u dhashay iyo ciidamadii qaranka ee ku soo kordhay iyo kuwii madaniga ahaa ee joogay intaba waxa ay ka sameynayaan anagoo ka xun waxaanu leenahay la joojiyo وحلال إيه وحي باللغة قريها اللي تبصريه gidaarada wax lagu qorayo dabdarooyinka aan laaqiga ahayn adduunyo waxba ka hali doona dad baa hali doona waa la isu dambeeyaan nololimo dhammaan inan dambe oo waxaa shaqo hawsha wada oo aanu raalli ka nahay haddaanu nahay waayeelkii gobolka ma jiro xukuumadda gobolka joogtana waxaanu ku adkaynaynaa go'aamadii hore ay soo saareen ee arrimaha ka soo saareen ee dawliga ahaa inay fuliyaan waana ku taageeraynaa dhalinyarada waxaanu faraynaa inay dib uga laabtaan shaqada ciidamadana waxaanu faraynaa inanka ay ku arkaan inay gabtaan oo xukunka iyo xukuumadda la horgeeyo tallaabada sharciga ee xaq u yeeshaan laga qaado waxaanu leenahay ka waantooda waxaanu leenahay guryaha ilaaliya dadka hantidooda u dhowra naftiinana u lexjeclaaba oo waxa xun wala lexjeclaaba intaas waa naga inta kale waxaanu leenahay dagaal baa ka dhacay magaalada qadarkana ilaah ba iska leh oo keenay diyaar loomaynaan ahayn dhinacii la doonaba ha ka yimaado siduu doonana ha ku yimaado wixii ilaahay qadaray baa ka qadarmay hadeerna waxaan leenahay anigu nabadgelyadiina hala baadi doono dadka cagaa dhulka ha loo dhigo magaalada yaan laga tegin yaan laga qaxin hala joogo kuwa ka maqan ee imika meel kale ku maqanna waxaan leenahay nabadgelyaan idiin haynaa haddaan laydinka waayo idinka anigu nabadgelyaan idiin haynaa oo idinku yeeraynaa haddaase dee idinku wax kala keentaan waa waxaa ka heshaana kaa anigu shaqo ka jawaab maayo waxaanu ku soo ururaya hadalkayga magaalada hala dhowro qof walba aakhirada u turo waxaanu halkan iskugu nimi iyadoo waayeelkii heer Ceergaabo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo salaadiintiiba in hawlku maqan mooyo inta yadi kale halkan joogno waxaanu leenahay halkan isku kaaga keenay waxa la sheegayo gobolka ka socda guryo la jabinayo arrinka inaan kula socon haddaan waayeelka nahay tallaabana haddii alla waxaanu dawlad iyo shacab iska kaasho doonaa in tallaabo laga qaado qofkii wax bileeqaysanaya bini'aadamka ka xishoo waayay ilaahay ka xishoo waayay raba maanta inuu xaaraan qaato waxaanu leenahay gacan bira baa lagu qabanaya dawladdu saasay amran tahay annaguna saasaanu kula shaqaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay ka baqa guryaha iyo waxa aad samayseen askarta laftooda waxaanu leenahay dadka asha xumada wada ee isku sawiraya guryaha
waxaan leenahay waxaa dib ha ugu noqonina taliyayaasha waxa tallaabo sharciga ka qaada arrinkaa raalli aanu kaba nihin in wax la bilaqaysto boqolkiiba boqol waanu ka soo horjeednaa waana qabanaynaa weliba sidii ay soo saareen maamulka gobolku iyaanu ku taageersannahay in la qabto xataa la dilo qofka lagu qarko waa ahlunaar waxaanu lahayn qofka intuu qaato lagu dilo waa finnaar weeye waxaanu leenahay annagu islaax baanu wadnaa sidaa odayada hore sheegeen waxaanu leenahay naxnu waanu islaax dalka islaax baanu nabadgelyaanu wadnaa nabadgelyaanu dadka ugu baaqaynaa waxaanu leenahay dadkan sayrkan heer Isxaaq iyo wixii la dega ee magaalada qaybina qaxayso qaybina waxaa wado magaalada ku soo noqdo waa nabad beri ma jirto annagu waanu weynaa waanu seexanaa magaalada ku soo noqda dadkan dadka kicilaya ee baabuurta kirada doonaysa iyo waxa oo dhan xitaa xukuumaddu talaabaha ka qaado waxaanu leenahay nabad baanu leenahay sidaa la sheegay kuwa magaalada dee fidmada kaga cararayna waxaanu leenahay haddaan nabad rabtaan waa wada qaadanaynaa haddaad diidaanna dee adinkaydii la jirtaa awal baa annagu weydii samraynay waxaanu leeyahay war mushkilad joojiya sabirkii baanu ku jiraa below nin og bay og tahay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ee la doortay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro horta baaq baanu u diraynaa baaqa iyagaasi waxa weeye magaalada ammaankeeda in la sugo oo la adkeeyo oo ammaanka gacan buuxa lagu qabto baanu doonaynaa mudane madaxweyne gobolka Sanaag ammaankiisii wuxuu u baahan yahay in gacan buuxda lagu qabto waxa dhacay waa doctor dhibaato dhacday dhibaatadii waxa ka dambeeyay in dhulkii la boobo oo magaaladii la bilaqaysto oo guryihii dadka la gurto taana waxa keenaya ciidamada ammaanka oo aan ku filayn ammaankii iyo nabadgelyadii inay magaalada sugaan taa waxaanu leenahay mudane madaxweyne si degdeg gobolka ammaankiisu inuu u sugmo waxaan u baahannahay in aad talaabo degdeg qaadid oo ammaanka gobolka lagu sugayo oo lagu xakameeyo qofka wax bilaqaystay ee guryaha baaraya ee baabuurta la rarayo ee aan ciidamada ammaanku qabanayn ee aanu 10 ka sarka hadal baanu ka hadlaynaa mudane madaxweyne maanta in wax laga qabto oo mar labaad ku celinayna taa inta kadib waxaan kaloo ka hadlayaa magaalada Ceergaabo waa nabadgelyo inta joogta iyo inta maqanba waxaan u sheegaynaa Ceergaabo inay nabad baanu ku joognaa nabadna waanu haynaa kii naga tagay iyo kii qaxay iyo kii kaleba nabad baanu haynaa nabadna waanu ugu baaqaynaa ilaa aan weynaa nabadda waa ku baaqaynaa horaan ugu baaqnay oo mar iyo laba iyo saddex midna aan ahayn maantana waa ku celinaynaa Ceergaabo inay nabad noqotaa baanu doonaynaa dadku inuu walaaltinimo ku wada noolaadaa baanu doonaynaa nabadgelyaanu ugu baaqaynaa kuwii qaxay guryihiinii iyo dhulkiinii ku soo noqdaan leenahay oo nabad noogu kaalaya ciddii nabad ka shaqaynaysa meelay joogto daliya dawladana waa soo dhaweynaa oo diyaar baanu nahay nabad baanu ku baaqaynaa ta kale waxaanu kaloo ku baaqaynaa ciidamada hubka sita ee militariga iyo madaniga baa magaalada si degdeg ah in looga saaro oo guddiga nabadgelyadu degdeg ay uga saarto si ammaanka magaalada loo xakameeyo ciidamada militariga in xiriyooda ha joogeen oo hubka dhigteen ciidamada madaniga hubka sitana waxaanu leenahay goobihii loogu talagalay ha tageen qofkii magaalada hub sharci darra la soo mara ciidamada ammaanka waxaan leenahay gacan buuxda ku qabta oo gacan buuxda lagu qabto ammaanka magaalada hal la sugo madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa si degdeg ah arrinka inaad wax nooga qabatid leenahay degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag waa nabad baanu leenahay waxaanu leenahay maamulka iyo dawladda Soomaaliland magaalada Ceergaabo waxa qasaya ee waalaya waa ciidanka qaranka degdeg magaalada looga saaro ciidanka madaniga na jiidood iyo meeloodii hal la geeyo waxa weeyaan ciidanku waa in deefarmahooda la geeyaa oo magaalada aan ku dhaxmeeraysan ciidanka madaniga weeyna goobahooda la geeyaa nabadna waa ku baaqaynaa waayeelka labada dhinacba waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ka shaqeeyaan xaggaana nabadda ay ka shaqeeyaan xaggana nabadda laga shaqeeyo dadkii la isku soo celiyo dadku waa walaalo meel kale tagi maayaan nabadda in laga shaqeeyaan ku baaqaynaa dadkan bilaqaysanaya hantida aan lahayn oo idinku xaaraan ninka malqacad qaata oo hantidii uu lahaa malqacad u geeya xaaraana inta kale waa ka xaaraantinimoobaysa waxa uu leenahay war aakhiradiina u tura oo ubadkiina u tura oo ciyaalkiina u tura oo waxaad cunaysaan u tura waxba idin tarmaysa wallahi xaaraanta olol iyo xaaraan baa ka qaadaysa cidda ka shaqaynaysa iyo cidda saacidaysa iyo cidda la baalkeenaysa waxaan leenahay
xaaraan baydu ku tahay xaaraantaa iska daaya oo ilaahay ka baqa dawladdana waxaanu leenahay arrinkaa tallaabo ka qaada oo wax ka qabta ha eeganin ee wax ka qabta oo waayeelkeennana waxaanu leenahay inaan wax ka qabanno wuxuu ku saabsan yahay magaalada dadka bililqaysanaya ee guryaha jabsanaya inay guryaha ay jabsanayaan ay joojiyaan baanu baaqayagu weeye alaab aanay lahayn iyo guryo aanay lahayn iyo hanti aanay lahayn inay gurtaan raalli cidna kamaaha ciidanka booliska maamulka gobolka amar bay bixiyeen anuu amarkaasaanu ku raacsannahay ninkii wax lagu qabto aan xoolo aan lahayn guranaya ee guri jabsanaya tallaabo sharciga laga qaadaya weliba wararka waxaanu ku haynaa in daldul fadhiyaan oo ay iibsanayaan kuwa waxaanu leenahay waanu baadhaynaa gaadhi baxayaana ma jiro gaadiidka magaalada ka baxaya ee basaska ee wareegaya ee alaabaad la bililqaystay qaadaya waxaanu leenahay idinka gaadhigiinu waana laydin qabanayaa gaadhigiinuna waa wars nimankaa gaadiidka wata nimankaa gawaarida kireeya ee xafiisyada leh waxaanu leenahay gawaadhidiinu yaanay ku gubanin oo lagu waraskarayn hanti xaaraan aho bililqaa tallaabo xad baa laga qaadayaa ciidanka booliska guddida nabadgelyada waayeelka dhammaan waxaanu heeganuna inaan waxaa la qabto sidaa darteed ninoonan waxaana lahayn ha guranin guryaha lambarada lagu qorayona ha laga daayo nin leba iska leh aroortaa laysu imanaya nimankii sharwadayaasha ahaa ee magaalada dagaalka ka riday haddii laga saaray magaaladu inay dogto baanu doonayn oo loo baahan yahay ee aydinaan bililqoy boob idina ku bilaabin wixii ciidamaana waxaanu leenahay madaxdooda waxaanu faraynaa inay magaalada ciidamadooda ka saaraan ayaanu baaq foolxumada ka dhacaysa magaalada Ceergaabo gudaheeda ee ku saabsan bililqada la bililqaysanayo guryihii laga tegay waxaanu leenahay jiilaalku wuu baxay nacastiisa hadhae wariyay foolxumo reebin baanu leenahay beraa loo soo imanayaa beraa laga xisaabtamayaa waliba foolxumooyinka jira waxay tahay ninka guriga bililqaysanaya ee nin gurigii guranaya ee isku sawiraya ee markhaatiga isdaba qaaday kaa waa laga daba tegayaa meelna ku qarsoobi maayo beritaa laga daba tegayaa sharcigaa la waafajin doona waxaan leenahay kii wax qaatay ilaahay ha ka boqo wuxuu qaatay ha iska celiyo oo halka cid ha u celiyo meesha ilaahay ha u celiyo musaajada ha geeyo hadduu garan waayo saldhigyada ha geeyo war waxaa qaadateen iska celiya dawladda waxa la amrayaa war ka tegey ee qaxay iyo ka joogaba inay iyadu mas'uul ka tahay mas'uuliyada ka mas'uuliyada iyadaa leh iyadaa u dawladda war dadka hantidooda iyo dadka qaxay waxooda war u suga oo u ilaaliya oo wixii wax xadaya ama bililqaysanaya tallaabo ka qaada oo ciidanka qaranku kaana waa ciidan kana waa ciidan war isagu tallaabaha ka qaado dadka wixiisa dhacaya ninka ka tegay wixiisii waxa u ilaalinaya ciidanka ama boolis ha noqdo ama ciidan qaran ha noqdo annaguna waanu ku garab taaganahay waxay nooga baahdaan waa la garab taaganahay war shaqaha laga qabto dadka noocaas ah arrintaasu waa ka xunahay wixii ku kacana tallaabo sharci ka qaadaynaa dawladda waa ka soconnaa go'aan hore waa ka soo saaray gaariga sida iyo ninka lagu qabto iyo kameesha jooga intaba waxa laga qaaday tallaabo sharci saas waa taa talabaad haddaanu nahay waayeelka annagu nabad baanu hortahaynaa nin maqan nabad baanu haynaa iyo nin joogaba nabad baanu anagu haynaa haddii la waayo waa meesheeda laakiin annagu waxaanu nahay oo doonaynaa inaanu nabad baanu ku wadnaa oo doonaynaa haddaan weyno waa meesheeda ma garata laakiin annagu nabad baanu diyaaru nahay